kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah xog culus oo laga helay madaxweyne Xasan Sheikh oo booqasho degdeg ah ku tagay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wafdi hordhac ah oo gaaray degmada Cadale oo maalmihii dambe dagaal beeleedyo ay ka taagnaayeen haddaba muxuu Xasan Sheikh kala hadli doonaa beeshiisa dowladda federaalka oo tallaabo adag ka qaadaysa qaar kamid ah ganacsatada waaweyn ee dalka kadib markii la ogaaday in ay al-shabaab u gudbiyaan gawaarida qaraxyada ah iyaga oo lacago waaliyaha indhaha uga ridaya saraakiisha ammaanka ee magaalada Muqdisho iyo dabagal xoog leh oo hadda ka soconaya caasimadda hanti dhowraha qaranka oo weerar culus ku qaaday dowladii madaxweyne Farmaajo kuna eedeeyay in sanadkii 2021 uu maamulkii madaxweyne Farmaajo musuqay lacagihii ugu badnaa iyo warar sheegaya in hanti dhowrahan uu xilkiisa weyn doono maalmaha soo aadan qodobada kale waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay al-shabaab oo kordhisay weerarada ay ka fulinayso maamulka koonfur galbeed kadib markii maanta dagaal qaraar uu ka dhacay deegaan u dhow magaalada Baydhabo ee gobolka Baay iyo dowladda Imaaraadka oo ballanqaad cusub u sameystay Soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana talaado 22 bisha 11 ee November sanada 2022 barnaamijkan si shargareeya oo dhammaan gaarsiiya saaxiibada kale ee idinku jira baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena waxaa faahfaahino iyo macluumaadyo hoose laga helayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo booqasho degdeg ah qorsheynaya in uu ku tago qaybo kamid ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo uu kaga dhawaaqi doono dagaal ka dhana kooxda al-shabaab sidoo kalena uu la hadli doono beeshiisa oo dhawaan si ba'an isugu leeynaysa qaybo kamid ah ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyada oo la soo sheegayo in ciidamo fara badan ay gaareen halkaas madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno la socda ayaa lagu wadaa inay gaaraan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe si uu madaxweynuhu ugu koorgalo howlgallada ka socda deegaano ka tirsan gobolkaas sidoo kalena uu calaamiyo in la kordhiyo dagaalka lagula jiro kooxda shabaab wafdi hordhac waa madaxweynaha ayaa lagu soo waramayaa in ay sii gaareen degmada Cadale kuwaas oo isugu jira mas'uuliyiin iyo sidoo kale ciidan iyo saraakiil waxaa sidoo kale halkaas sii gaaray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo lagu wado in ay soo dhaweeyaan ama soo dhaweyn ay u sameeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Xasan Sheikh ayaa degmada Cadale kula kulmi doona saraakiisha ciidamada iyo kuwa deegaanka ee hogaaminaya howlgallada ka socda Shabeellaha Dhexe kuwa oo uu ka dhageysan doono warbixin la xiriirta halka ay marayaan howlgallada socda ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa dhawaan al-shabaab waxay kala wareegeen deegaano dhowr ah oo horay ay u haysteen waxaana socda howlgalka ay ciidamadu ku doonayaan in guud ahaan gobolka ay uga saaraan kooxda al-shabaab dhinaca kalena qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa laga qaadaya tallaabo adag kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay heshay xogo sir ah oo ku saabsan in ganacsatada qaar ay si toos ah xiriir ula leeyihiin kooxda al-shabaab marka laga tago in ay lacago siiyaan in ay u fududeeyaan howlo kale oo kamid yihiin fududeynta qaraxyada ee al-shabaab ay ka geystaan magaalada Muqdisho xogo sirdoon oo daboolka laga qaaday ayaa waxay sheegayaan in ganacsatada waaweyn ee magaalada Muqdisho ay iyagu markaasi yihiin kuwa gudbiya baabuurta ama gawaarida waxyaabaha qaraxa ay ku raran yihiin ee ka soo gudba checkpointiyada adag isla markaana geysta khasaaraha kala duwan xogtan ayaa waxa ay tilmaamaysaa in ganacsatada ay marka hore isbartaan saraakiisha ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho inta badan markaasi sugta dadka ayaa isweydiinaya sidee ayay isku bartaan saraakiisha xogtu waxa ay arintaasi ku sheegtay in ganacsatada iyo saraakiishaasi ay isku bartaan marka hore gawaarida xamuulka ah ee ay leeyihiin ganacsatada kuwaasi oo laga soo gudbiyo checkpointiyada sidaasina ay isku bartaan saraakiisha iyo sidoo kale ganacsatada ayaa markaasi lacago waali ah indhaha uga rida wiilasha da'da yar ee saraakiisha ah ee jooga checkpointiyada si ay hadhow ugu fududeeyaan in gawaaridaas aanan markaa lagu qashqashaadin wadada amaba aanan lagu xayirin saraakiishu markaa waxa ay gudbinayaan waxa ay yihiin gawaari xamuul ah sidaasina lacagahooda ayay ku qaataan halkaas ayuuna ka bilowdaa ayay xogtu sheegtay isbarashada iyo xiriirka ganacsatada iyo sidoo kale saraakiisha ammaanka intaas wixii ka dambeeya waxa ay ganacsatadu markaasi fududeeyaan gawaarida kale ee al-shabaab ay leeyihiin ee qaraxyada markaasi wada iyagoo soo wacaya saraakiisha isbarteen isla markaana lacagaha ay siin jireen kuwaas oo ay ku sheegayaan in gawaaridaas ay iyaga leeyihiin amaba iyaga u socdaan sidaasina loo sii daayay amaba dabiin ay ka yihiin sidaasna aan gawaaridii lagu baarin oo ay ku geystaan falalkii iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee ay markaasi dhibaato ahaa
haddaba dowladda federaalka waxay sheegtay in xogtan ay hayso isla markaana baaritaano ay wado, waxayna dowladdu ogaatay in ay jiraan shabakado isku xiran oo ka tirsan laamaha ammaanka ee Soomaaliya, ganacsatada ilaa iyo kooxda Al-Shabaab, maadaama Al-Shabaab kaligood aysan markaa weeraro iyo dhibaatooyin kale ka geysan karin magaalada Muqdisho haddii aanan loo fududeynaynin. tusaale ahaan qofka shacabka ah ee wata gawaari markaasi raaxo caadi ah waxa ay ku tahay dhib in uu maro wadooyinka magaalada Muqdisho, iska daa qof aanan ID-kaar haysan. xitaa dadka ID-kaarada haysta ee ka shaqeeya ama u shaqeeya dowladda federaalka ayaa qaarkood ay ku adag tahay inay meelaha qaar maraan. dadkuna waxay isweydiinayaan sidee ayay gawaaridan inta u soo gudbaan meelahaasna uga soo gudbaan ay meelaha muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ay isugu qarxiyaan. taas jawaabteeda dadka intooda badan waa iska fahamsan yihiin oo waxaa jira xiriir toos ah oo markaa ka dhaxeeya shabakado isku xiran oo ilaa iyo Al-Shabaab markaasi ku eg. dowladdu waxay sheegtay in arrintaas tallaabo adag ay ka qaadi doonto, isla markaana ay qorsheynayso in ay bilowdo howlo waaweyn oo ku saabsan sidii arrintaasi ay markaa uga jawaab celin lahayd, isla markaana jawaab ay uga keeni lahayd. waa hagaag wararkeena kale haddii aynu eegno, hantidhowraha qaranka waxa uu weerar ku qaaday dowladdii madaxweyne Farmaajo isagoo sheegay in la musuqay lacago fara badan. ninka la yiraahdo Dr. Maxamed Cali Afgooye oo shir jireed ku qabtay magaalada Muqdisho ahna hantidhowraha qaranka ayaa soo saaray warbixin sanadle ah oo ku aadan habmaamulka maaliyadeed ee dowladda sanadkii hore 2021. Afgooye hantidhowraha qaranka ayaa warbixintiisa diiradda ku saaray dhinacyo badan sida xisaab xirka miisaaniyadda ee 2021 taasi oo gaaraysay $666 milyan isagoo ka hadlay sida loo maareeyay deeqihii la helay iyo COVID-19 oo mar labaad soo laba kacleeyay. hantidhowraha qaranka ayaa shaaca ka qaaday in uu baaris ku sameeyey ilaa iyo 29 hay-adood oo ka mid ah 67 hay-adood ee dowladda iyo sidoo kale 2 safaaradood. waxa uuna sheegay in markaasi la musuqay lacago aad u fara badan. Maxamed Cali Afgooye ayaa waxa uu warbixinta ku sheegay in la waayay $28 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo dakhli ah, isla markaana ay dowladdu ka heshay qandaraasyo lala galay shirkado caalami ah, isagoo tilmaamay in aan la xaqiijin maadaama aan loo hayn caddayn ku filan. waxuu intaasi ku sii daray in uusan hayn boqolleyda ay lahaayeen shirkadahaasi iyo waxa ay helayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. hantidhowraha qaranka ayaana u muuqday mid markaasi si toos ah u weerarayay dowladdii hore madaxweyne Farmaajo. meelo badan ayuu tilmaamay oo warbixintiisa uu ku xusay oo ay ka mid yihiin gobolka Banaadir oo sheegay in lacago fara badan ay ku maqan yihiin, safaarado ayuu xusay iyo sidoo kale qaladaad badan oo jira. warbixintiisuna waxay ahayd mid markaasi aad u dheereed oo uu ku sheegayay in musuq badan uu jiray sanadkii hore ee 2000 iyo markaasi 20 marka waa 2021 markaasi uu sheegay in lacago fara badan la musuq maasuqay sida uu hadalka u dhigay hantidhowraha guud ee qaranka. si kastaba hantidhowraha qaranka ayaa la filayaa in isaguna uu ka mid noqdo xubnaha isbedelka lagu sameyn doono dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay markaasi daadka raacsiin doonto sida qorshuhu uu markaasi yahay, maadaama isbedelkaas uu qayb ka noqon doono. ugu dambeyntiina Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maalmahan dambe. dagaalyahano aad u hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka la yiraahdo Daynuunay ee dhaca duleedka Baydhabo. sida aan wararka ku helnay, dagaal culus oo daqiiqado badan socday ayaa dhex maray ciidamada huwanta ah iyo kuwa Al-Shabaab, waxaana dagaalka la soo wariyay in khasaaro labada dhinac ah uu markaasi dhaliyay. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay fashiliyeen weerarkii kaga yimid dhinaca ururka Shabaab, isla markaasna khasaaro ay ku gaarsiiyeen dagaalkii ay la galeen kooxda. Al-Shabaab ayaa dhankooda waxa ay sheegteen in ay la wareegeen deegaanka Daynuunay ay weerarka ku qaadeen, waxayna Al-Shabaab sheegteen in dagaalka khasaaro ay ku gaarsiiyeen ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa Koonfur Galbeed. deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 25 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ayaa marar badan waxa weeraray kooxda Al-Shabaab. deegaankan ayaana muddooyinkii dambe la geeyay ciidamo badan si ay Al-Shabaab markaasi isaga difaacaan oo ay u yareeyaan weerarada ay markaa ka fulinayaan deegaankaas muhiimka u ah magaalada Baydhabo. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warkani. intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.